kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa qaybta labaad ee sheekada ku saabsan dilkii la yaabka lahaa ee ka dhacay qolka 1046 kaasoo ilaa iyo maanta aan la xalin. qaybtii koowaad ee sheekadii dilkii la yaabka lahaa ee ilaa iyo maanta aan la xalin ee dhimashadii ugu xumeyd qolka 1046 ayaa inoo joogtay iyadoo hal saac kadib maareeyihii isgaarsiinta hoteelka uu dareemay in qolka 1046 ay teleefoonkiisa fiiladu ka siiban tahay una diray wiilkii Randolph ahaa. kadibna wiilkii albaabka garaacay laakiin laga furi waayay markii uu furihiisa isticmaalay ee uu qolka gudaha u galayna arkay Owen oo dhulka jiifa gacmihiisuna madaxa dul saaran yihiin darbiyada iyo dhulkana dhibco dhiig ah ay ka muuqdaan. wiilkiina inta uu naxay booliska wacay. inta aanan guda galin sheekadan daawadaha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inaad ku soo biirto barteena YouTube-ka oo aad subscribe saarato sidoo kale haddii aad ka heshay muuqaalkan aad like saarto si aan u ogaano bal kuwa ay yihiin muuqaalada ay saaxiibadu aadka u xiiseeyaan oo aan u soo badino. mahadsanid. markii uu boolisku yimid waxay arkeen Owen oo xaaladiisu aad u liidato dhaawacyo xunxun ay ka gaareen xabadka kadib markii si ku celcelis ah oo xoog badan midi xabadka looga shaqeeyay madaxana dhaawac ku dhufasho xoog leh ay keentay uu kaga yaalo. sidoo kale waxa dhaawacyo jug leh kaga yaaleen qoorta gacmaha calacasha korkooda iyo qoobka waxayna u ekeyd in la jirdilay oo waliba la ceejiyay. laakiin wixii la yaabka lahaa ayaa waxay ahayd intii Owen aanan isbitaalka la geynin mar ay boolisku wareysteen qofka dhibkan u geystay ayaa waxa uu sheegay in isaga uu kufay dadna uu ku dhacay barkad. Owen waa la qaaday waxaana la geeyay isbitaalka halkaas oo uu markii dambe ku nafbaxay. boolisku markii ay baareen qolkii aad ayay ula yaabeen waayo wax dhar ah meesha ma oolin. sidoo kale waxyaabaha musqusha laga helo shukumaano agabka sida caadiga ah hoteelada laga helo midna ma oolin qolka gudihiisa. gogasha sariirta iyo darbiyada waxa ku haleysnaa dhiig. faraha kaliya ee qolka laga helay waxay ahaayeen kuwa ku yaalay nalka jiifka ee qolkaasi kuwaasi oo loo badiyay inay lahayd qof dumar ah. waxa kale oo qolka yaalay markii ay boolisku yimaadeen 2 galaas oo biyo ah midkood xoogaa laga cabay kan kalena uu sidiisii u buuxo iyo sidoo kale dhala aashita ah oo xiran oo aan wali la furin. wax kale oo qolka yaalay ma aanay jirin. shaqaalihii waxa ay booliska u sheegeen in daahyada qolka aan xitaa hal mar la furin tan iyo markii uu Owen halkaasi soo degay. wax raad reeb ah oo la dabagalo ma aysan jirin. booliskii dhib ayaa ka haystay inay gartaan waxa meesha ka dhacay balse arrintu way ka siiya badnaan doontaa sida ay hadda tahay. waxaa la ogaaday in Ronald T. Owen uusan ahayn magaciisa runta ah ee hoteelo kaleeto oo magaalada ku yaala oo magacyo kala gedisan ku joogay dhammaantoodna been abuur ah sida ay boolisku sheegeen. intaas oo dhan hal mar oo qura ayaa la arkay isaga oo la socda nin kale. warar kalena waa la helay sida nin magaalada ka shaqeeya oo la yiraahdo Len uu yiri Owen ayaa u yimid ninkaasi isagoo u maleynayay inuu tagsiile yahay. Lenna booliska waxa uu u sheegay in qabowgii dhacayay ninkan Owen ah uu qabay kaliya kastuumo iyo funaanad. markii uu Len u sheegay Owen inuusan ahayn tagsiile waxa uu weydiiyay halka uu tagsi ka heli karo. Owen markaas gacantiisa dhaawac ayaa ku yaalay dhiig ayaana ka daadanayay. markii Len uu weydiiyay waxa gacanta kaga dhacayna inta candhuuf uu ku tufay ayuu ku yiri waan ka aarsan doonaa kadibna isaga dhaqaaqay. dad kale oo ah kuwa baararka qamriga ka shaqeeya ayaa waxa ay sheegeen in Owen uu imaan jiray baararka kala gedisan ee aagaasi isagoo ay la socdeen naaga kala duwan. sidoo kale hagaha wiishka hotelka The President waxa uu sheegay inuu arkay naag uu u qaatay inay ka mid ahayd kuwa jirkooda ka ganacsada oo raadinaysay qolka 1046. lama soo oga inay naagtaasi lambarka qolka ay raadinaysay ay gaftay iyo inay ku lug lahayd kiiska Owen. intaasi kadib booliska sawiradiisii ayay meel kasta u direen balse cid aqoonsata ninkaasi qofka uu yahay waa la waayay. markii meydka dad badan la tusay waxaa ka mid ahaa dadkaasi Maria Lochin
oo sheegay in ninkaasi magaciisa runta ah la yiraahdo Wana, balse intaasi oo dhan waxba sooma kordhin oo sumadii Owen waa la garan waayay. Markii duugta la diyaariyay ayaa nin soo wacay booliska oo waxa uu leeyahay ninkaasi meydka ah waa seedigay, una sheegay booliska inay qaldan yihiin, ninkaasina aysan ku duugi karin qabuuraha Bota sidii hore loo qorsheeyay. Qofkan soo wacay booliska ee dahsoon xitaa waxa uu bixiyay qarashaadkii duugta oo dhan, isagoo lacag cadaan ah oo wargeys ku duuban u soo diray shirkad dadka duugta, balse wax kale oo warbixin dheeraad ah oo lagu tixraaci karo ma aysan jirin. Mar labaad ayaa booliska waxa ka hor yimid darbi aanan la gudbi karin oo ku gadaaman dhimashadii Owen. Duugtii Owen qaraabo iyo saaxiibo cid timid ma aanay jirin, inkastoo qof aanan la aqoonsan soo diray lacag, ubax iyo xaashi yar oo ay ku qornayd weligay waan ku jeclaan doonaa Louis, balse weli booliska ma aanay ogaanin qofkaasi Owen lacagta iyo xaashida u soo diray cidda uu yahay. Waxayna isku dayeen inay helaan qofkan dahsoon ee u soo diray Owen xaashida markii uu dhintay kadib, balse wax cad oo ay ku daba galaan ma hayaan. Sidoo kale maraqaatiyaashii ku noolaa hotelka The President waxa ay sheegeen qaabkii la yaabka lahaa ee uu ninkaasi u dhaqmayay maalmihii uu hotelkaasi joogay iyo wixii habeenkii ka dhacay qolkaasi. Ugu dambeyntii Owen waxaa lagu duugay qabuuro kale, qarashkii oo dhanna waxaa bixiyay qofkii dahsoonaa. Dhimashadiisii iyo xaaladii la xiriirtay waa ay ku adkaatay in la xalliyo. Noloshiisiina dhinac ayaa la iska dhigay tan iyo intii laga soo gaarayay sanadkii 1936, markaasoo haweenay soo wacday booliska taasoo magaceeda ku sheegtay Elena Ogletree. Waxa ayna sheegtay inay ku noolayd Birmingham oo ka tirsan gobolka Alabama ee dalkaasi Mareykanka. Haweenaydaasi intaasi oo kaliya xogteeda laga hayo waxay sidoo kale booliska u sheegtay inay wargeys ka akhrisatay arrinta ku saabsan ninkan Owen ah, durbadiibana ay aqoonsatay sawirka walaalkeed oo la yiraahdo Atamas, kaasoo ay ku sheegtay in markiisii hore la waayay gugii 1900. Haweenaydan ayaa waxay booliska u sheegtay in waraaqo fara badan uu walaalkeed u soo diray hooyadeed kadib markii uu xaafadda ka soo tagay, muddo fara badanna uu soo qorayay waraaqo reeraha walow isagu uusan aqoon sida teebka loo garaaco. Haddana dhowr warqadood oo uu soo diray waxaa ku jiray erayo isdaba marsan oo xitaa shaki geliyay reerka. Waxa ayna sheegtay haweenaydan in warqadii ugu dambeysay uu walaalkeed ku sheegay inuu aadayo Yurub oo uu nolol cusub ka raadsanayo. Booliska intaas oo xog ah ayay ka heleen tan iyo markii uu dhintay Owen. Arrintu waxay sidaasi ahaataba oo kaliya boolisku ay haystaan warbixin ay gabadhu u soo dirtay. Maalin baa waxaa soo wacay nin kale oo isaguna telefoon u soo diray booliska, sheegayna in magaciisa la yiraahdo Jordan, kaasoo yiri ninka gabadhu ay sheegtay in la yiraahdo Atamas inuu yahay nin isaga hadda ka hor noloshiisa badbaadiyay. Jordanna uu hadda ku nool yahay waddanka Masar, halkaasoo uu xaasku guursaday. Laakiin mar labaad ayaa waxaa su'aal ah oo soo baxday ninka la yiraahdo Atamas ee gabadha iyo ninku ay isku raaceen iyo qofkii kale ee meydka ahaa ee laga helay qolka The President ma isku mid baa. Booliska haddana waxaa u soo gacan galay hal xiraale aan la furi karin, weliba ka dhigay dhimashadii Owen mid ku gadaaman dhowr dhacdo. Su'aalaha badan ee ay isweydiiyeen booliska waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo Jordan ma isaga ayaa dilay Owen, kadibna lacagta iyo sidoo kale waraaqaha u soo diray booliska. Haddii uu Owen yahay qofka dhintay ee ku dhintay qolka hotelka The President, aaway Atamas maxaana ku dhacay? Maxaa xiriir ah oo ka dhaxeeya Owen iyo Atamas? Mar labaad ayaa booliskii waxa ay go'aansadeen in arrinta ay lugta u yara dhigaan si wax fiican looga ogaado. In ka badan 70 sano markii ay ka soo wareegatay ayaa kadib booliskii reer Mareykan waxaa sanadkii 2013 mar kale soo wacay nin magaciisa ku sheegay John Horner oo ahaa librarian ka shaqeeya library ku yaala magaalada Kansas, waxaana uu sheegay in qof uu u soo dhiibay alaab, isagoo sheegay in alaabtaasi ay ku jireen wargeys ka hadlayay Owen ama Atamas labadaba. Sidoo kale ay la socdeen waxyaabo kale oo ku saabsan Atamas. Laakiin mar saddexaad qofkan ciwaankiisa lama hayo, halka uu ka yimidna waa ay garan waayeen booliska. Markii la weydiiyay ninkii librarianka ahaa, waxa uu sheegay
wicitaanka iyo alaabta uu helay kaliya inuu ninkaasi ka hayo oo wax kale oo raadraac ah lagu dabagalo aysan jirin. tan iyo markii la dilay Owen waa dhacdada kaliya ee soo martay booliska Mareykanka oo ilaa iyo maanta loo laayahay xal iyo sidoo kale wax lagu tiriyo cidii ka dambeysay dilkii Owen ama Thomas. booliskana waxa ay la yaaban yihiin wixii ka dhacay qolka 1046 mana cadda sida ay wax u dhaceen iyo cidda ka dambeysay dilkaas. waxaana dilkaasi la geliyay diiwaanka koowaad ee waxyaabaha aanan la xalin ee ka dhacay wadanka Mareykanka. daawadayaal, qaybtii labaad dilkii la yaabka lahaa uguna dambeeyay sheekadii Owen ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa. tan iyo inta aynu ku kulmayno sheeko midan lacayna waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.